Asalaamu calaykum. Maanta waxaan ka hadli doonaa sidii MT4 loogu isticmaalo laptopkaaga ama desktopkaaga. Marka hore, haddii uu kugu jiro waa halkeeda, haddii aanu kugu jirin laakiinse brokerka aad account-ka ku leedahay ama real ha ahaado ama deema ha ahaado ayaad booqan doontaa, kabacdina isaga ayaad kala soo degi doontaa. Marka laba qaab kala soo degi kartaa, ama inaad chat-ka kala hadasho oo aad ku tiraahdo ii soo dir linkigii MT4-ka, iyo inaad platform-ka tagto kabacdina MT4 ku dhufato kabacdina desktop ku sii dhufato. Labada qaabba waad awoodaa. Haddaad Premise isticmaalaysana sidaas ayaad sameynaysaa. Haddii aad IC Market isticmaalaysana sidaas ayaad sameynaysaa. Haddii aad mid kale isticmaalaysana sidaas ayaad sameynaysaa. Aniga marka waan la soo degay, uma baahni hadda inaan la soo dego. Waxaan ku tusi doonaa sidii aad u isticmaali lahayd iyo sidii aad setup-ka u hagaajisan lahayd. Ila soco marka. Marka hore aad soo gasho waxaa laga yaabaa inaanu sidan ahayn oo aanay kuuba joogin connection-ku aanu ku joogin baa laga yaabaa. Marka halka ay file ku qoran tahay ayaa tagi doontaa, kabacdina on open an account ayaa ku dhufan doontaa, kabacdina server-ka magaciisa lagu soo siiyay ayaa ku sii dhufan doontaa, kabacdina halkaas ayaa tigta saari doontaa. Halkan ayaad email-kii iyo wixii yaraad lagu soo siiyay username-kii iyo password-kii gelin doontaa, kabacdina finish ayaad ku dhufan doontaa. Marka xalaaladda ama connection-kaas ayaa soo istaagaya, halkaas oo caadi noqonaya. Marka hadda anigu wuu login gareysan yahay, mar rabo inaan waqti badan ku sii lumiyo, cancel baan iska odhanayaa. Marka shaashadan sidan inoo ah ayaan hagaajinaynaa. Intaan meesha ka wada tuurno ayaan dib u soo bilaabaynaa. Marka ila soco. Ka waan iska jaray, kuwana soo qabo mid walba halkan keen, iga jar, tanna soo qabo, iga tuur, tanna soo qabo, iga tuur, tanna soo qabo, iga tuur. Hadda maxaad u jeedaa? Daaqadii dhan waxaan ka dhigay eber baan ka dhigay eber, waxba kuma reebin. Kabacdina view halkay ku qoran tahay baad tagi doontaa, kabacdina halkan ay toolbars ku qoran tahay baad tagi doontaa. Sida ay u soo kala horeeyeen buu soo gasho standardkii inoogu horeysay. Haddana view-gii ku noqo, toolbars-ka tag, chart-ga inoogu xigsii, haddana view-gii tag, toolbars-ka ku noqo, line status-ka inoogu xigsii, view-gii ku noqo, toolbars-ka tag. Time frame-kuna waa muhiim inoo soo qaad. Standard-ka ayaan soo qaadayaa, kabacdina halkan ayaan dhiganayaa. Chart-ka ayaan soo qaadanayaa, isagana halkan ayaan dhiganayaa, halkaas ayaan ku sii deynayaa. Line status-ka ayaan soo qaadanayaa, isagana halkan ayaan dhiganaynaa. Time frame-ka ayaan soo qaadanayaa, isagana halkan ayaan dhiganaynaa. Marka imika daaqadii sare ayaan habaysanay. Waxaan u baahanahay inaan soo gashano lacagihii iyo halkaas ayaa tegaysaa. Market watch ay kugu qoran tahay waa ku dhufanaysaa. Waa kuwan lacagihii AUD USD right click dhe, kabacdina chart window dhe. Halkaa inoo soo gashay sida inoogu weyne bid iyo aski waa gacantii hore iyo gacantii dambe. Waxaan u baahanahay imika inaan hagaajisano shaashadan madow inaan ka dhigano caddaan ama shaashad qurux badan oo daaqadan ama shaxdan aan meesha ka saarno. Right click ayaad odhan, properties ayaa tagi, kabacdina halkan ayay ku keeni doontaa. Background-ka isaga horta caddaan inooga dhig. Halkan foreground ay ku qoran tahay isagana black inooga dhig. Waxay noo sheegayaa laymanka yaryar. Halkaa grid-ka iyada sideeda ku daa. Bar up-ka blue inooga dhig. Bar down-kana casaan inooga dhig. Bull candle-kana blue inooga dhig. Beer candle-kana bearish casaan inooga dhig. Sidaas ayaan imika ku hagaajinay shaashadii oo aan ka dhignay mid cad, laakiin weli kamaynaan saarin wixii grid-kii yaraa. Haddii aan eegno waa kan grid-kii weli waa ku jira. Right click ayaad odhan, properties ayaa tegi, common-ka ayaa sii tegi, show grid halka ay ku qoran tahay ayaad tigta ka qaadi doontaa. Kabacdi bal hadda imika aan eegno. Hadda waan ka qaadnay shaashadii mid cad ayaan ka dhignay. Hadda qiimuhu halka uu joogo ma arkayno. Halkaas ayaa tegi, halkaa yar
shift n ay ku qoran tahay ayaad halkaas ay ku dhufan doontaa. Imika zoom de qiimo halka joogtay wayna keenay kaga duwan yihiin. wuxuu ku sheegayaa halka lagu xidhay iyo halka lagu furay. waa candleska inay tagno bal candle nooga dhig oo candleska naga fogay line ka dhigan karnaa line ka dhigan karnaa. halkani waa soo dhaweyntii, halkani waa fogeyntii. halkani afar daaqadood imika afar lacagood baa noogu jirin, tusaale afar lacagood aan soo gelino chat window taanade imika afartii lacagood bay afar daaqadood. haddaba kuwii kale si aanan dhibkii aan tan ka marnay oo kale aanan uga marin, tan noo sodla tan inay save galaysanayna right click ayay oran. halkaas ayaad ku dhufan doontaa template ay ku qoran tahay save template ayaa oran doontaa. kabacdina magaca doonayso adigu ula bax, tusaale ahaan cadaan kow oo kale ayaan oranayaa. imika shaashadihii kale aan soo furo, halkaa windows aan taabto, tan aan ku dhufto, kabacdina right click ayaa oranaynaa, template-ka ayaan tegaynaa. halkan bay ku soo galaysaa marka halkan ayay ku soo galaysaa. aniga dabcan kuwa hore ay ku jiraan marka tiin save galinay waa cadaan wankaas ahayd. waka mar walba sidaas ayaad ula soo baxaysaa intaas. okay asii socono. daaqadan halkan file-ka isaga open an account-kaas ayaa ugu muhiimsan. halkan animaado insert-ga animaado waxa isaga ugu muhiimsan shapes-kana ugu muhiimsan oo rectangle-kan oo kale isaga waa lagu calaamadsadaa kolba halka qiimuhu marayo, sidaas ayaa loo dhigtaa. halkan isaga halkan aad animaado bahashan cross hairtan yar waxa lagu cabiraa pips-ka ayaa lagu cabiraa, saas soo jeedi. kan isaga waa horizontal line-kii waa kan. haddaad u baahan tahay inaad kalarka iska bedesho kale right click baad odhan, horizontal line properties ayaa taaban. kabacdina waa kan kalarkii halkan aad kaga bedelayd madow doonayso kale, haddaad doonayso inaad sii buurnaysiiso kale, haddaad doonayso inaad line ka dhigato kale, sidaas ayaad isagana u dhigan doontaa. halkan waa trend line-kii, waa kan waa trend line weeyaan. iska dhigayka waa trend line inoo soo qaad sida inoo dheh. kabacdina kan noogu dhufo trend line properties dheh, white kan inooga bedel blue oo kale bayna dhig. waka marka qaar waxa dhacday in trend line-ku ka noqdo halkan oo kale, halkan parameters oo kale reegin ku saxan yahay oo kale, tusaale ahaan exuda noqonayo u dheeraanaya meel uu ku dhamaanayo meel ka socdo toona lama garanayo. marka halka yar ayaad uncheck oran doontaa ama tigta iska qaadi doontaa. halka yar reeg ku qoranta ayaa tigta iska qaadi doontaa. waka imika ana intaan doono jiidi kara, intaan doono aniga ayaa jiidi kara. waka imika xoogaa uu yara buuran yahay, waan yaraynayna. comment ku soo noqo kan kaalay inta inooga dhig. waka xoogaa imika wuxuu noqday yar ayuu noqday. halkan kale kaalay Fibonacci retracement kanina waa Fibonacci. haddaad u baahan tahay inaad kalarka kaga bedesho halkan baa tegi, waa kan madow oo kale tusaale ahaan nooga dhig line kana line yar nooga dhig. waka isagana sidaas ayaa isticmaalay. haddii aad u baahan tahay inaad tagas ku qorto oo kale, tusaale ahaan mt4 markaa ku qori kartaa. haddaad u baahan tahay tagaska inaad ka bedesho ama farta inaad bedesho waa kuwan. haddaad u baahan tahay lambarka inaad weydiiso waa kuwan. haddaad u baahan tahay inaad kalarka ka bedesho waa ta. iyadana sidaas ayaad u isticmaalaysaa. aanu imana markan halkan aanu imana terminal waa halkii aad kala soconaysay lacagaha iyo tradeska aad ku jirto, sida account history-ga, tradeska aad ku jirto, alertiga, waxaasoo dhan aad kala soconaysay weeyaan.
halkaas ma haddaad doonaysa waad iska qaadi kartaa, haddaad doonaysana waad furan kartaa. New order waa markaad trade si degdeg ah u galaysid. haddaad lacagihii waa kan tusaale ahaan USD kaada oo kale, halkan waa volume-ka halkii volume-kaas ku galaysay 0.05 badhe, halkan waa stop loss-kii, halkan waa take profit-kii. hadduu market execution yahay weeyaan, hadduu pending yahay buy stop iyo buy limit u yahayna halkan baad price-ka gelin doontaa, ka bacdina place ayaa odhan doontaa. indicator aan kusoo darsano, halkana tegi, halka ay plus ku qorantay indicator list ayaa ku dhufani, halkan ayaa tegi, kaa doonayso ayaad ka baadhani, ha ahaado MACD, ha ahaado momentum, ha ahaado Ichimoku, kolba kaa doonayso, ha ahaado stochastics, waa kan stochastics noogu soo dar. haddaad doonayso inaad color kaga bedelato, haddaad doonayso inaad tiro iyo lambar ku darsato, sahaan 50 oo kale inoogu dar, adde okay, waa kan inoo soo galay. mid kale kusoo darsan karna, tusaale ahaan MACD oo kale ama moving average oo kale 21 ka dhig, halkaana sidaaba ku daa. moving average-kana waxaa inoo soo galay. haddaad u baahan tahay inaad indicator kusoo darsato, haddaad u baahan tahay dhowr daaqadood inaad sidaa mar kaliya wada isticmaashana, sidaas ayaad odhan doontaa. waxaan filayaa inaan waxba igu harsanayn. inta yar aan ka tegayna meelahaas aad kasii darsi kartaa. intaasaan ku soo afmeerayaa. Asalaamu calaykum.